ciyaaraha kubadda cagta ayaa ah isdhexgalka bulshada iyo sare u qaadida fahamka kubadda cagta iyo muhiimadda ay leedahay. Deegaanada xeebaha ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah deegaano ay ka dhisan yihiin naadiyo badan oo ciyaartooy ah oo hami ka leh sidii ay guul uga gaari lahaayeen inay xirfadooda u soo bandhigaan. Garoomada ay ku ciyaaraan iyo agabyadii loogu talagalay ciyaartooydaasi ma ahan kuwo dhammaystiran. Qaarkood waxa ay ku ciyaaraan garoomo bacaad ah, haddana waa kuwo ku dhiiran inay hibadooda soo bandhigaan, rajadooduna ay iftiimiyaan si ay ula mid noqdaan ciyaartooyda dhigooda. Halkan waa deegaanka Raskamboni, waxa uu leeyahay hal garoon oo uu maamulka deegaankaasi hirgeliyay, inkastoo uusan u dhammaystirnayn sidii loogu talagalay. Gudoomiyaha ciyaaraha ee degmada Badhaadhe ayaa Jubbaland TV uga warramay caqabadaha guud ee haysta ciyaartooyda xeebaha gobolka Jubbada Hoose. horta baahi Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kaabi karo. baahi hadda media laga sheegay waxba ma tarayso. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna soo kaabo. baahiyaha gaarka ah ee aan qabno waad arkaysaa. garoonka hadda aan taagannahay waa garoonka Raskamboni. waad arkaysaan bilicdiisii iyo siduu yahay waa meel dhul ah oo aan tarabuun iyo midnaba haysanin. khayr Allah ha siiyo maamulka degmada Badhaadhe ugu horeeya gudoomiyaha degmada Badhaadhe mudane Maxamed Fanax iyo taliyaha amniga Raskamboni Abdullaahi Shareero ayaaba intaanayta inoo keenay oo dhisay. inta kalena waxaan ka rabnaa dawladda iyo madaxweynaha inay kaalintooda ka qaataan haddii alla idmo. garoonka hadda midkaan ugu weyn oo Kamboni lagu ciyaaro waa garoonkan. dhowr naadi baa ka dhisan waana ku yar yahay kumana filno, tarabuunna ma haysto. marka garoonka waa midkaad arkayso iyo mid kale oo gadaal ah, laakiin kana hadda lagu dheelaa oo ugu weyn. garoonka hadda ugu weyn waa kan. horyaalada loo qabto Raskamboni way jiraan, 8 ka mid ah way jiraan, laakiin sanadka dabayaaqadiisa sidaan kale ayaa la qabtaa. inta ka horeysayna dhalinyarada hadda waxay ahaayeen waa maamul hoggaan la ah haysay. haddana hoggaankii Ilaahay subxaanahu wa tacaala anigu ii idmaday. waxaan rajaynayaa inaan insha Allah uu si laba jabaarmo shaqadan ay sii socoto haddii aan garab ka helo madaxweynaha iyo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha. tartanka waa mid kan aad arkaysa galabta socdo. waxa weeyaan si waliba saan dharkaan galabta aan geynay mooyaan wax kale hadda dheeri aan u hayn malahan. waayo ciyaaraha markay socdaan wax badan baa macnaha dadka la guddoonsan jiray, biladaas jiray, biladihii ma hayno. waxa la marka caqabad waa macnaha macmal baan ku wadnaa. macmalkii dhalinyaradan way ku kalsoon yihiinoo dad had wax sii raadinayba ma ahano, way iyagu ku kalsoon yihiin. haddii alla mukaas kan aan u tahay haynon aan rabno inaan qabanno inaynu ogaadaan ururka kubadda cagta ee Jubbaland aan ka rabnaaba kaas ah in aan jasiiradaha haddaan nahay garoonka ugu weyn hadda wuxuu ku yaalaa Raskamboni. in Raskamboni aan ku martigelin anigoo gudoomiyaha ah iyo muxuu ahay jasiiradaha kale iskugu keenay Raskamboni oo tartan wanaagsan oo la og yahay inuu ka dhacaan rajaynayna haddii alla idmo oo jasiiradaha ku ah.